madaxweynaha mudaxileedka uu ka dhamaaday xasan sheekh maxamuud haatan wararka aynu helayna waxa ay sheegayaan in go'aano kama dambaysa uu qaatay oo xoog iyo xoolo waxa uu hayay iskugu geynayo in Puntland markaasi dagaal lagu qaado isla markaana laga takhaluso maamulka Puntland ee markaasi madaxweynaha uu ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani muuqaalkan waxa aynu ku eegi doonaa daawadayaal gobolka Mudug xilligani maxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ayaa taniya maanta ka socday waxaana halkaas la geeyay ciidamo aad u tiro badan oo kala duwan waxaana xasan sheekh maxamuud uu canaan kala dullacay saraakiil in muddo ahba lacag ka qaadanaysay dawladda dhexe iyo ciidamo markaasi dhawaan tababar loogu xidhay magaalada Dhuusamareeb duleedkeeda ee dhanka Galmudug kuwaas oo amar ku siiyay in ay qabtaan magaalada Galkacyo ee markaasi dhanka Puntland waxaynu eegi doonaa ciidamada markaasi dhankani laga daabulayo Galmudug oo laftigooda kala qaybsan isla markaana aan isku waafaqsanayn qorshaha dagaalka iyo qaabka markaasi dagaalka loogu qaadayo magaalada Galkacyo iyo deegaanada kale ee hoos imaada haddaba dhanka maamulka Puntland talaabooyin culculus ay qaadeen ciidamadii ugu badnaa ayaana Saciid Cabdullaahi Dani uu soo dhoobay deegaanadani la doonaya in dagaalka lagu soo qaado waxaana saraakiisha kala gadisan ee markaasi ciidamada daraawiishta ee Puntland amar lagu siiyay in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada dawladda dhexe ay aagagaasi ka wado iyada oo sidoo kale magaaladaas caawa cabsi xoogan laga dareemayo waqti walba dagaal ayaa dhici kara oo wali baaruuddu afka ma aysan ka bixin haddaba maamulka Galmudug ayaa waxa uu noqday haatan meesha loo sii dhaxmarayo Puntland meesha hubka ugu badan laga dajinayo waa dhanka Galmudug oo xuduudka la ah dhanka Puntland halkaas baabuur ayaa laga daldalaya ciidamo laga keenay dhanka Shabeellaha hoose ayaa aagagaasi la geeyay sida xogaha aynu ku helayno sidoo kale xasan sheekh maxamuud waxa uu kulan gaar ah la qaatay Asad Diyaano oo ah ninka sida weyn ay isku hayaan Saciid Cabdullaahi Dani waxaana markaasi ay ka arrinsadeen sida dhidibada loogu siibi lahaa maamulka ka arrimiya Puntland ee madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani qiimo kasta iyo kharash kasta ku kacayana xasan sheekh ayaa sheegay in uu miiska saarayo si kale wax kuma garatide waxa uu doonayaa sidii Raas Kamboni iyo Jubbaland oo kale inuu markaasi ku sameeyo dhawaan waxa uu ku fashilmay ciidamadii ka amar qaadanaya dawladda dhexe ee BSF-ta ee dhanka gobolka bari ka howlgalayay hubka dhigis ayaa lagu sameeyay waana arrinta sida weyn xasan sheekh maxamuud ugu cuntami weysay in sida fudud markaasi loogu sameeyo dhankii ninkii loo jiray Jamcaale Takar ayaa isagana uu ku fashilmay oo ugu dambeyn heshiis la qaatay Puntland ugana baxay ballamihii uu ka qaaday Villa Soomaaliya markana waa markii saddexaad waxa lagu tijaabinayaa dhanka gobolka markaasi Mudug iyo gaar ahaan magaalada Galkacyo dhaqdhaqaaqa ugu cuslaa iyo xilligan waxa ka soconaya gobolkaasi Mudug ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa soo dhawaada muuqaalkan oo la gareeyay shar gareeyay oo la wadaaga saaxiibadeen si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan aan ku baahinayno soo gaaraan aad ayaa u mahadsantahay